waxaa farxadii ah oo aan mar walba aan ku farxnaa ama aan ku farxaa inaan gobyo ka noqdo meel waxbarasho lagu taageerayo. maanta waxaan joognaa meel arday Soomaaliyeed oo lagu caawinayo ayna ku caawinayso mu'asasada ama foundationka Hormuud Foundation oo loogu bartay inay bulshada gargaaraan. maanta tan aan u taagannahay waxa waaye waa sanadkii saddexaad ee arday lagu tartansiiyo waxbarasho gudaha in la siiyo oo imtixaan lagu kala bixiyo. tirada 400 ah oo maanta imtixaanka u fariisanaysa waxaa lagu kala bixinaa imtixaan oo ay soo dejiyeen dad khubaro Soomaaliyeed haddana ay sixi doonaan khubaro Soomaaliyeed. waxaan ilaah kasoo u mahad celinaya dadkii soo diyaariyey iyo macallimiintii imtixaanka soo dejisay oo waqti geliyey. marka bulshada Soomaaliyeed waxay maanta u tahay farxad haddii jaamacadaha dhaqaalaha lagu bixiyo waalidka qaarkiisa ma awoodaan. arrintan waxaan cid walba oo ganacsi samaysa shirkadaha waaweyn waxaan rabaa inay ku daydaan Hormuud Salaam Foundation oo barnaamijkan aasaas u ah inay sidan oo kale dadka culays ka qaadaan. marka waa ku mahadsan yihiin mar labaad mar saddexaad inay bixiyaan minxadan ama maaragtay waxbarashadan jaamacadaha ardada laga bixinayo lacagaha laga bixinayo. anagana ka wasaarad ahaan waa taageersannahay waana garab taagannahay mar walba.